wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Maxamuud Jaamac Galaal ayaa maanta deeq daawooyin kala wareegay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. wasiiru dowlaha caafimaadka iyo saraakiisha sarsare ee hay'addaasi ayaa dhammaantoodba ka warramay sida ay xilligan muhiim u tahay in la kaalmeeyo dadka ay ku dhufteen aafada abaaruhu gaar ahaan gobollada bari oo ay ka taagan tahay xaalad aad u adag. mudane Maxamuud Jaamac Galaal ayaa ka hadlay doorka ay wasaaradda caafimaadku ka qaadato gurmadka loo fidiyo dadka abaaraysan. waxay maanta guddoonsiiyeen dawooyin lagu galo hawsha lagaga hortago tabaalada abaaraha dawadaas oo ilaa 5,000 oo tan ah iyay maanta keeneen ilaa alaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa WHO ilaa waqtigan xaadirka ah intay aafada abaaruhu ay socdeen waxayna guddoonsiiyeen 12,000 oo hore oo tan berrina diyaarad kala imanaysa diyaaraddaasina waxay kaloo sidaa 4,000 oo tan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sidaad ula socotaan waxaynu ku jiraa xilli adag inkastay roobabkii da'een Soomaalidu waxay tiraahdaa ayax tag eelse ka tag waxa weeyaan roobkii Ilaahay wuu inoo shubay laakiin iminka iyo halis kale bilaabantay biyaha iyo daadka oo qaadaya wasakhdii iyo baktigii dheecaankii baktiga iyo isagu halistiisa leh arrimaha aad baan uga taxadiraynaa wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay samaysay qorshe ballaaran oo ay iminkana ku jirtaa meesha iminka ugu daran waqtigan xaadirka ah waa gobolka Togdheer bay arrintu aad ugu culus tahay iyo Sool waxaanu wadnaa hawlo aad u ballaaran inaanu si aanu xakamayno xanuunada siiba shuban biyoodka. geesiisana waxaa kale oo halkaasi ka hadlay sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda WHO Mr. Gamal Gagambe waxaanu sheegay in ay dalka ku soo wajahan yihiin deeqo caafimaad oo ay ugu tala galeen 10,000 oo qoys oo reer Soomaaliland ah isla markaana ay barakiciyeen aafada abaaruhu. We are working with the ministry in disease surveillance to make sure that information is collected, analyzed, distributed, and action is taken according to the situation that in the ground. The disease control issues, we are working very, very closely. وجامعة محمد TV قرنك الصوماليلاند هرقيسة.